kaalmahaasi waxaa ka caba dadka aanay guryahooga ku jirin halkii mitir cubic waxa laga qaadi jiray 13,500 oo lacagta Soomaaliland tira ahaan waxay gaadhaan kaalmahaasi waa 350 kaalmood. Bismillahir Rahmanir Rahiim, alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu alayhi wasallam. maanta taariikhdu tahay 10kii bishii 6aad 2026 waxaanu halkan ku qabanaynaa shir jaraa'id oo ku saabsan shalay taariikhdu markay ahayd 9kii bishii 6aad madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro wuxuu soo saaray wareegto ku saabsan in qiimihii hoos loogu dhigay dadka masaakiinta ama dadka danyarta ee ka caba kaalmaha ay wakaaladda biyuhu ay biyaha siiso. waxaan doonayaa inaan wareegtadaasi aan sii detail garayno. wakaaladda biyaha Hargeysa qaybay magaalada biyaha siisaa, meel kastoo biyaha gaadhsiisay waxa ku yaala kaalmahaasi waxaa ka caba dadka aanay guryahooga ku jirin, aanay biyuhu ku jirin. 5 degmo oo Hargeysa ka mid ah ayay kaalmahaasi ku yaalaan. waa Maxamuud Haybe, Axmed Dhagax, 26 Juun, Gacan Libaax iyo Koodbuur. 5 degmo ayay ku yaalaan. marka dadka inta badan biyaha ka caba waa dad aanay guryahooga qasabada biyaha ee wakaaladdu aanay ku jirin. tira ahaan waxay gaadhaan kaalmahaasi waa 350 kaalmood marka la isku wada daro. intooda badanna way shaqeeyaan, dadkuna waxay ka dhaansadaan jirikaamo ay biyaha kaga qaataan ama markaasi weel kooban. taas weeyaan wareegtada madaxweynuhu ay ku soo baxday ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo dadkaas loo naxariisanayo. halkii mitir cubic waxa laga qaadi jiray 13,500 oo lacagta Soomaaliland waxaana imika loo bedelay 8,500 shilin. marka wakaaladda biyuhu iyadoo oo wareegtada ka duuleysa bisha 7aad kowdeeda haddii la yiraahdo waxay fulin doontaa wareegtada madaxweynaha, waxaanay dhaqan gelin doontaa in dadka danyarta ay biyaha ku iibsadaan 8,500 halkii mitir cubic. mar labaad haddaan ku celiyo, halka biyaha la jabiyo waxa weeyaan halka ay ka qaataan, meelaha ay ka qaataan dadka danyarta ah waana kaalmaha biyaha laga cabo. marka waxa weeyaan waa 350 meelood ama kaalmood oo magaalada Hargeysa ku yaal, gaar ahaan 5 degmo. marka meelaha biyo balaarintu gaadhay way ku jiraan oo waxay ku dhex jiraan 350 kaas. marka intaas ayaan doonayay inaan faahfaahin ka bixino. wareegtada madaxweynuhu soo saarayna aan markaasi dhaqan gelino haddii la yiraahdo markay gaadho 1 bisha 7aad haddii la yiraahdo. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.